mar walba oo sanadku bilaabmayo waxaynu isku daynaa inaynu samaysano qorshayaal iyo yoolal aynu kaga faa'iideysanayna sanadkaasi cusub iyo waqtiga cusub ee bilaabmaya laakiin nasiib xumo mar walba oo sanadku dhamaado oo aynu isqiimeeyno waxa inoo soo baxda in yoolalkeennii iyo ujeedooyin iyo ahdaafteennii aynu dejisanay aynaan wax badan ka xaqiijin maanta waxaynu soo qaadan doonaa 3 arrimood oo ka caawin kara qaabka saxda ah ee yoolasha loo dejiyo ugu dambeynta muuqaalkana waxa aan samayn doonaa practical intaynu soo qaadano oo aynu ku qorayno buug iyo qalin inaga oo samaynayna yoolka sanadkan cusub ee maanta inoo bilaabmay qodobka koowaad ee muhiimka ah marka aynu yoolasheena sanadlaha aynu dejisanayno waxa kow ka ah waa inaad ka fogaato ama aad iska ilaaliso in ay ku qaado xamaasadu طبعا mar walba oo sanad bilaabmayo waxa lagu yaqaanaa qofku inay soo gasho xamaasad aad u badan taasi oo qofku isleeyahay waa inaad dejisato yoolal iyo ahdaaf aad u fara badan marka talada koobaad ee bixinaya waxa weeyaan iska ilaali inaad xamaasadooto mar kastana xamaasada ka fogow qodobka labaad ee loo baahan yahay waxa weeyaan ka fogow ama iska ilaali inaad samaysato yoolal ama ahdaaf aad u fara badan طبعا يولاش marka aynu dejisanayno qodobka muhiimka ah maskaxda ku haynayna waxa weeyaan waa inaynu kala qaybino waa inaynu leenahay yoolal ama ahdaaf xagga diinta waa inaynu leenahay yoolal aynu ku kobcinayno garaadkeena iyo cilmigeena waa inaad leedahay yoolal ama ahdaaf xagga caafimaadka aad ugu tala gashay طبعا saasi u kala duwan yihiin laakiin arrinka khaladka ay dad badan ku dhacaan waxa weeyaan inuu qofku dejisto yoolal aad u fara badan marka waxa loo baahan yahay ugu badnaan haddii aad istiraahdo sanadka aad badiso yoolashaadu yaanay dhaafin 5 yool anu walibana waxa aan soo jeedinayaa inaanan yoolasha aynaan ka badinin 3 yool tusaale ahaan halkii aad ka dejisan lahayd sanadka cusub in aad wada xifdido quraanka oo dhan waxa muhiim ah inaad kaliya target garaysato inaad xifdido hal juz oo kamid ah quraanka waxa laga yaabaa marka saasoo kale lagu raado hal juz oo quraanka kamid ah inay yaab kula noqoto istiraahdo muxuu yahay ama inuu maalayacni kula noqdo oo aad istiraahdo sanadan hal juz oo quraan way ka badan tahay halkii aad ka samaysan lahayd inaad akhrido ama yool aad ka dhigan lahayd inaad akhrido 50 buug 40 buug waxa muhiim ah inaad dejisato kaliya inaad akhrido 2 buug ama 3 buug arrinkaas hadaba muxuu naga caawin doonaa waxa muhiim ah qofku markuu ahdaaftiisa ama yoolashiisa uu aad u soo yareeyo nafta bini'aadamka waxa ka baxaysa marmarsiyihii ahaa caajiska hadhow toole markaa waxa dhici doonta haddii marka aad wixii aad la qabsato waxa aad samayn doonta adiga ayaa si toos ah oo automatic ah u sii kordhin doona hadhow toole marka waxa la inooga baahan yahay yoolka saxdii waxa weeyaan waa yoolka xamaasaduna ay ka maran tahay dhinaca kalena aad iyo aad u soo kooban oo aad loo yareeyay oo ay naftu ay xamili karayso qodobka ugu dambeeya ee saddexaadna waxa muhiim ah marka aad yoolasha samaysanayso inaad ku qaybiso bilaha macnaha tusaale ahaan macquul ma noqon karto adigoona marka hore waxba akhriyi jirin quraan aan xafidsanayn luqad hore ama luqadda midna Englishka aan waxba ka aqoonin graphic design hadda doonaysid aan waxba ka garanaynin inaad one time intaaba aad wada bilaabi karto wax aqliga gali kara ma waxa loo baahan yahay marka bil walba waa inaad wax target garayso tusaale ahaan iminka January baa inoo bilaabantay bisha January waxaad ka soo qaadaa inay noqoto bishii quraan xafidka marka maxaad samaynaysaa maadaama ku dejisneed inaad sanadka aad hal juz oo kaliya taxfido maalinkii waxa ka sugaya 2 aayadood oo kaliya ama 3 aayadood marka bisha January waxaad ka dhigaysaa bishii quraanka maalin walba waxa laga sugayaa kaliya 2 aayadood hadhow eeg markaad la qabsato adaa biirsan doona wax kalena January ha isku mashquulinin markaynu u gudubno February waxay noqon doontaa tusaale ahaan bishii wax akhriska maxaa laga sugayaa inaad maalinkii wax akhrido kaliya 5 daqiiqo only 5 minutes ayaa laga doonayaa inaad wax akhrido March marka loo gudbo maxaad ka dhigan doontaa tusaale ahaan bishii caafimaadka ee jimicsiga maalinkii kaliya inaad jimicsato 10 daqiiqo marka maxaa dhici doonta March oo kale markaad joogto quraankii waad soo wadaa oo maalin walba 2 aayadood baad soo xafidaysay wax akhriskii waad soo wadaa oo 5 daqiiqad maalinkii wax soo akhriyeysay March marka la joogana waxaad ku dartay jimicsigii iyo caafimaadkii oo 10 daqiiqo ah intaas marka hadaba dhaqan iyo caado ay ku noqoto bilaha dambe saad doontaad samayn kartaa horaad u sii biirsanaysaa waxa laga yaabaa maadaama wax akhriskii aad la macaansanayso oo aad la qabsatay inaad hal maalin laga yaabo buug dhan inaad ku dhamayso laakiin inta hore xamaasadaada isku day inaad qabato yoolka iyo hadafka aad leedahayna isku day inaad soo koobto bil walbana inaad ku qaybiso hal hadaf oo kaliya
intaasi waxay ahaayeen saddexda talo ee aan soo jeedinayo si aynu markuu sanadku dhammaado aynu dhammaan yoolashii aynu lahayn aynu xaqiijino iminka waxaynu u gudbi doonaa haddaba practicalkii waxaynu soo qaadan doonaa buug iyo qalin kadibna waxaynu samayn doonaa ahdaaftii iyo yoolashii aynu lahayn sanadka cusub waxaynu iminka bilaabi doonaa qorshihii oo practical ayaynu qori doonaa marka koowaad waxaynu u baahannahay inaad soo qaadato buug cusub iyo qalin waxa sidoo kale wanaagsan haddii aad heli karayso inaad soo qaadato sticky notice midabo kala duwan leh kuwaasoo kolba lagu salaynayo inta hadaf ee aad ku tala gashan tahay sanadka inaad xaqiijiso aniga imika waxaan tusaale ahaan soo qaadanayaa inaan 3 hadaf aan ku tala gashanahay kadib waxaan soo iibsaday 3 sticky note ayaan soo qaatay yalla aynu bilowno page-ka ugu horeeya waxa aad ku qoraysaa magacaaga saddexan iyo lambarkaaga gmail ama email haddaad leedahay waxaa loogu talagalay tusaale ahaan haddii buugga uu kaa lumo oo kale ayaad u isticmaali doontaa page-ka ku xiga far waaweyn oo la arkayo iminka taydan waa iska tusaale ayaad ku qoran doontaa page-ka ku xiga qorshaha sanadka cusub ayaad ku qoraysaa page-ka ku xiga waxaynu isticmaali doonaa sticky notice-ki aniga imika waxaan ku tala gashanahay sanadkan soo socda tusaale ahaan maanta inoo bilaabmay inaan sameeyo inaan xaqiijiyo 3 yool ama 3 hadaf inaan xaqiijiyo marka hore si aan u soo sheegnay ahdaaftu waxa loo baahan yahay waa inay ku qaybsan yihiin ama waa inay u kala qaybsan yihiin ugu badnaan 5 qaybood 5 qaybood oo kala ah xagga caafimaadka xagga waxbarashada xagga cibaadada iyo muxuu ahaayay diiniga iyo aakhirada xagga cilmiga iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga xiriirka aad la leedahay dadweynaha iyadoo muuqaal hore inuu sameeyno walibana silsilada mid walba iyo sida loo hagaajiyo tusaalaha marka saasoo kale aan u qoray sanadkan xagga cibaadada iyo diiniga maxaa ii qorshaysan waa in halkaas ugu taxo xagga cilmiga iyo kobcinta aqoonta maxaa ii qorshaysan waa in halkaana saa ugu taxo xagga caafimaadka maxaa ii qorshaysan waa in halka aan saa ugu taxo xagga tusaale ahaan qorshaha cibaadada oo kale maxaa sanadkan halkeen doonaya inaan gaadho waxaan li imsa hadafan kale xagga cibaadada halkaas aad ku qoran doontaa anigu hal mid baan soo qaatay oo ah xifdin jis quraana xagga cilmiga marka ay noqoto maxaa qorshe ii yaala waxaan leeyahay inaan sanadkan sameeyo dhaqanka wax akhriska xagga caafimaadka maxaa sanadkan qorshe iiga yaala inaan jimicsi aan sameeyo 3 yool ama 3 hadaf ayaan doonayaa inaan xaqiijiyo sanadka soo socda marka imika bisha kolba aad joogtaad ka bilaabaysaa marka inagu maadaama aynu joogno bishii koowaad ee January bisha magaceedii baan halkan ku qoraynaa bishan kaliya waxaynu awoodda saareynaa qorshaha cibaadada oo ahaa inaynu xafidno hal juz oo quraana sanadka soo socda bishaas oo dhan inta uma ku mashquulsanaanina dabcan ma aha juzka bishan la wada xafidiya laakiin macnaha focuskeenu bishan ujeedooyinkii ama yoolashii kale aan dhiganay midna lama soo qaadayo kaliya xagga cibaadada ayaa awoodda January la saaraya kadib sidana loo kala qaybinayaa maanta waa maalin axada bishuna waa 1 biri waa maalin isniina bishu waa 2 salaasa waa 3 arbaca waa 4 khamiis waxay noqonaysaa bishu 5 jimcana waxay noqon doontaa 6 maalin walba halkaa waxa aad ku qoraysaa tusaale ahaan maanta oo axada waxa aan dejisanay inaynu xafidno 2 aayadood halka waxaad ku qoraysaa maalinka markaad habeenkii sii seexanayso wixii maalinta ku qabsoomay maalin walbana waxa aad ku dadaashaa inaad wax positive oo wanaagsan naftaada aad ka sheegto maanta ma sha Allah si fiican ma xafido 2 aayadood maxaa maanta wanaagsan oo la kulantay bari isniinta saasad wadaysaa salaasada saasad wadaysaa arbacada saasad wadaysaa khamiista jimcaha saasad u soconaysaa ugu dambeyn markuu toddobaadku ka dhamaado halkan banaan waxa aad u isticmaalaysaa waa qiimeyn adiga ayaa isqiimeynaya toddobaadkii dhamaaday maxaa ku qabsoomay maxaad ku wanaagsanayd halkan kale ee banaana waxaad u isticmaalaysaa toddobaadka soo socda maxaa qorshe ku dejisan imika halka waxa inoo plan gareysan weekii ugu horeeyay ee bisha January saasaynu markaa u wadi doonaa 3 week ee dhiman marka la gaadho hal waana maskaxda ku hayso hal ujeedayno bishan leenahay oo waxaynu awoodda saareynaa xagga cibaadada markay dhamaadaan 4 week ee la gaadho bisha February ama bisha labaad waxa aynu targetka saari doonaa ujeedadeennii labaad oo ahayd hadafkii aynu u dejisanay xagga waxbarashada iyo cilmiga marka waxa aad leedahay bisha February marka la gaadho
hadafyadeennii marka hore waxaynu awoodda saaraynaa xaggii cibaadada waxa bishan kuugu soo biiraya xaggii cilmiga tii cibaadadana lagama tegayo labadii aayadood ama saddexdii aayadood ee quraanka ahaa sidii baad u xafidaysaa adigoo taa ku soo adkaystay oo bildan soo waday waxaad ku lamaanaynaysaa qorshahaagii cilmiga oo ahaa inaad maalin walba aad akhrisato muxuu ahaa 5 daqiiqo tusaale ahaan oo wax akhris aad samayso sidii oo kale baad iyagana aad u kala qaybinaysaa sabti iyo axad iyo isniin baad u kala bilaabaysaa maalin walba marka halkii hore halkaad ka qori jirtay kaliya intaasoo aayadada quraan xafiday intii maanta waad qoraysaa laakiin February marka la gaaro waxa kuugu soo biiraya intaasoo page baan maanta akhriyay intaasaan ka faa'iiday March haddana marka la gaaro qorshihii ilaa 3 ujeedaynu lahayn waxaynu u gudbi doonaa qorshaheennii dhinaca caafimaadka ahaa inaad jimicsi samayso halka ugu yar ka soo qaado maalintii waxaan samaynayaa 10 daqiiqo oo jimicsiya iyadoo ujeedadeedii hore quraankii halkii ay kaaga sii socoto wax akhriskiina aad la soo qabsatay ayaad bisha saddexaad ee March marka la joogo jimicsigii iyo caafimaadkiina aad ku daraysaa sidaas aad markaa u wadi doontaa marka aad la qabsato sidaan soo sheegnay meel kasta ama meesha adigu aad jeclaato ama meesha aad kolba awooddaada ku gaarsiiso ayaad gaari doontaa qorshaha haddii aad raacdo insha Allah tacaala waxaan ku ballan qaadayaa inaanad ka caajisin sanadka marka uu dhamaadana aad is arki doonto adigoo qof labaad qofkii sanadkii hore lagu yaqaan maahe qof labaad noqday maanta kale marka ay bisha January ku tahay waxa la yiraahdaa maalinta ugu badan ee adduunyada dadku ay isbedelaan waa maalinta ugu badan ee dadkii sigaarka cabi jiray ay go'aan ku gaaraan inay sigaarka joojiyaan oo waxa loo yaqaan resolutions qof walba maanta kale naftiisa ballan buu la gelayaa insha Allah inta aynu soo bandhignay iyo macluumaadka aynu sheegnay waxay ka caawin doonaan in ballantaadii si sax ah uga soo baxdo markuu sanadku dhamaado khayr baan idin rajaynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh